goobtani waa xaafadaha isku raranta ah ee iskaal hawska ee magaalada Hargeysa xaafadan yar iyo weyn maalmaha ciidaha waxay ku ciidaan farxad iyo damaashaad maalmaha ciidaha xaafadan waxa ka dhacda ka duwan maalmaha kale kuwaas oo ah sidan leexada haddaan fuushanahay waxa lagu fuulaa ku shilin oo kaliya balse waxa la socota ku ka shilin jawi degan iyo waliba damaashaad farxadeed waxa fuula goobtan waa ciyaalko kaliya oo lagu damaashaadsiyo iyagoo faraxsan oo dholo cadeynayna halkan way ka tagaan maalmaha ciidaha soo dhawow walaalo ciid mubaarak wandhaw walaal ciid mubaarak ciid lamid walaal walaal bal waxaad nagu warataa leexooyinkan iyo ciyaalka xaafadda والله ما شاء الله فرحت ولا مسوي كوب كرم ما أنت مال عيدة هاي هل كان بيكون عيدان عيالك هداني هل كان يمن معيدان به ما شاء الله درين كل مسوي كوب كرم بالكور هدي عهوينك يجوا مع المها مرك هل كينية والله ما شاء الله يقول الصدق فرح سنين واحد عولي ما الله شيء ما يركن عيو ماي ما شاء الله ويفرح سنين لما أنتوا ولا لو سود واحد كم تهددك لحويك مع المها عيدة هل كان وصل صار عروتها ما حي كده قنت تاس walaal waxay ka dhigan tahay maanta oo kale waa maalin farxad ah waa maalin ciida dadku aad u wada faraxsan yihiin wadiga arkay waxa leeyahay meesha ku xidhan kaliya baa iska leh waxa caruur meesha joogaan ay shaqeynayaan dhamaantood waa aad baan ugu faraxsanahay ciidana waa soo dhaweynaa waxaan leenahay ciid mubaarak caruurta ka waran halkan ciyaarta iyagu wax dhaawac wali ma la soo sheegay may dhaawac ma noqon karaan waayo waxaan waasnaa anagu qoriga inta lugteeda in leeg kowdhay waxa qoriya adarka sano qoriya teelay lamaantoodna dadku way ku wada anfaceen wax lagu noqdaa ma jiro ilaahay mid walba naga badbaadiyaa waa 500 ku shilin qof awoodiisa ay tahay way marka caruurta kaliya gaar u tahay caruurta kaliya qaar u tahay oo dadku iskaga faraxsan caruurta iyo dhalinyarta lamaan idilka iyagu aad baan ugu faraxsanahay maalmaha ciidaha dadkani waxay hal abuuraan adeegyo ay ka mid yihiin looxooyinka daawadayaal wada arkaysaan iyo adeegyo kale daawadayaal goobtan hadda hor taaganahay waa mid ka mid ah hoteelada ay caruurta maalmaha ciidaha ay aad ugu ciyaaraan looguna diyaariyay agaybadii kala duwanaa ee caruurtaasi ku ciyaarayeen goobtan intaan la gelin waxa la soo goostaa tigidhkaas oo halkii qof ama halkii caruura uu yahay $3 marka la kaash gareynay ay noqonayso 25,000 bal goobtan hore u gali doonaa waxaanu wareysan doonaa waalidka iyo caruurta goobtan ku ciidaya farxadana ku muujinaya gudaha u gali doonaa bal xaaladda dhabta ee goobta ka jirta inuu soo eegi doonay sida caruurtu ay maalnimada ay u ciideen ina marsha
walaal soo dhawow ciid mubaarak ciid alcaafiya oo la wandhowahay saaka halkan goormaad timaadeen waxaan imi aduu laa ku cabaara 11 guriga ka soo baxnaa markii aad soo galaysay maxaa dhaqaale leen ka qaaday wallaahi waxaana laga qaaday dee haddaan sheego $11 ما شاء الله والله ما شاء الله عيد العافية عيد إلى عيد إلى بش بشي براغان وقرسي ما شاء الله تبارك الله ساكا شنتي صباح نمو سيدي صباح نمو ها والله سوى ناكسن باي هاي سوى ناك ها السوداء ولا عيد مبارك كل عام وانتم بالخير halka ka salaamay waxaan salaamayaa marka ugu horeysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan kala salaamay hooyadii aabahay waxaan kala salaamayaa walaalkay Sharmaake oo jooga Djibouti waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bilkhayr gurma halka timi sideedii subaxnimaanay ummadda muslimka oo dhan salaamaya saaka halka gurma timi sideedii subaxnimaanay والله سبي عبد الله سبي عبد عياري أدوان فرحتنا فرحتي لو سكوي كرا عبد الرشيد وحو كمد يا مسؤولين هوتيل كان إن جارهم وحوي عبد الرشيد وضد كين تان قبتها لنجلين والد كقاعد كده بل عبد الرشيد سودو بالمات محي كده وأنت عيدي هراء والله وندوي وما ستة والله ما توا معلم فرح الله عيد أو إنك صار بحنا بشي رمضان ما نعرفهم لذو حكيرين عروره عيد سينيان marka aanu qaybta halkan waxaan joogaa albaabka waxa halkaas tigirka loogu soo jaray marka loo soo jaro kadib aanu halkan tigirada kaga reebaya de ma sha Allah waxaan leenahay ciid wanaagsan soo yaca walaal tigirka marka inta lagu goostaa tigirka walaal waxa weeye waa 25 shilin halkaas ka soo goosanaysa laba warqood baa leeyahay hal warqood baan u reebaya waxa xagga guduhuna dhamaantii wada free walaal marka labada 25 kulma dadkoo dhan baa mise tirada lagu xidhaa qala qofkii weeyaan ala qofkii waa 25 shilin walaal hadday 10 qof kale oo kale maximum waxay noqon lahaayeen discount wuu jiraa walaal hadii carruurtu 10 qof oo kale saddex baa laga din karaa laba discount wuu jiraa waalidka ugu yeeray dhaqaalaha halkan goobtan intay kaga baxaysaa talow maadaama Cabdishaad aad u garanayso horta wallahi waa bil ciideed carruurtuna de marka maalinta ciidana carruurta qof kasta wuxuu jecel inuu farxadiisa ka taliyo haddana inamada shibshanka waa loo ilaaliyay oo waxa lagu yiri qof kasta de sidii muxuu ahaa ugu macquulsan hal laga qaado maadaama ay masiibooyin dhaceen بعد ينقض الونس علي